shirkadda East Africa Group ee deegaanka Soomaalida oo ah shirkadda soo dejisa gawaarida ayaa xafiis cusub ka furanaysa magaalada Addis Ababa. Xafiiskan ayaa ah mid loogu talagalay inay ka faa'iideystaan qurba joogta iyo bulshada kale ee ku dhaqan maadaama ay shirkaddu ay kireyn doonto baabuur isla markaana ay dib yareyn doonto dhinaca sharciyeynta sidoo kalena ay shirkadani hayso gawaari loogu talagalay dhinaca dalxiiska. Maareeyaha shirkaddan East Africa Group Mudane Cabdullaahi Cabdi Axmed ayaa ka warbixinaya ujeedooyinka xafiiska laga furayo magaalada Addis Ababa uu ku soo kordhin doono shirkadani. waxa kale noo qorshaysnaa inaan haddana aan bil kadib ka furno haddii Ilaahay yiraahdo Addis Ababa oo ay baahi fara badan ka taagan tahay. baahidaas aan ugu talagalay inaan u ku furkareyno dadka qurba joogta ee dibadda ka imanaya ama dadka deegaanka u dhashay ee dibadda jooga inay u qabto xafiiska Addis Ababa kireenta baabuurta cidii tourism u baahatay inay tourism u sameeyaan isla markaana inuu sameeyaan booking hoteelada oo kale loo booking gareeyo xafiisyada diyaaradaha in laga booking gareeyo facility fara badan oo ay baahidiisu taallay oo dadku u baahnayeen inay shirkaddu daboosho ayaan rajaynaa bisha September dhamaadkeeda haddii Ilaahay yiraahdo si rasmi ah uga furi doona xafiiska East African Dubai Group Company. macaamiisha shirkadda East Africa Group oo waqti xaadirkaasi ku sugnaa xarunta shirkaddan ayaa cadeeyay inay aad uga faraxsan yihiin adeegyada kala duwan ee shirkaddani ay bixiso. shirkaddan magaranaysa gawaarida keentay aad iyo aad bay magaranaysaa gawaarida horumar ay u kordhinaysaa saasay magaalada horumarkeedu magaranaysaa wixii dibadda loo doonayay ayaa Ilaahay magaranaysaa dalkii uu ka siiyay marka aad iyo aad bay horumar magaranaysaa shirkaddan u keentay saasay magaranaysaa shirkaddan loogu reeyo dadweynuhu magaranaysaa ugu reeyo nin kasta oo duleedkiisa wax uu ka iibsanaya intii East African Dubai Group waxaan u arkayaa shirkad horumar yani dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inoo soo korodhay oo waagii hore aan jirin sababtoo ah waxyaalaha nooc walba gawaarida loo baahan yahay haday kuwa dawladda ay tahay kuwa shacabka haday tahay nooc waliba iyo noocyada adeega bixiyo dhan ayay soo diyaariyeen marka waxaan leenahay waa horumar fiican oo inoo soo korodhay weeyaan oo Soomaalida gaar ahaan Itoobiya ah inaan la nimaado baabuur on keeno iyadoo xor aanu nahay oo xitaa cadaadis aan lagu haynin nin kasta muwaadin ah oo Soomaalida Itoobiya inuu yimaado oo si fiican wadankiisa u maalgashado oo wana shaqaysto oo Itoobiya meel aan meesha doono u geyn karo marka baabuurta loo cashuuro iyagoo sharciya. shirkadda East Africa Group oo ah shirkadii ugu horeysay ee soo dejisa gaadiid lagana hirgaliyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay horay xafiisyo kala duwan uga furastay ismaamulka magaalada Dirdhaba Dhagaxbuur iyadoo waqti xaadirkana xafiisyo kala duwan ku fidi doonta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Iga Axmed Buux, telefishinka caalamiga Soomaalisat, Jigjiga.